markii ugu horeysay ayaa kor laga duqeeyay ciidanka Yahuuda qasaare culus ayaa la gaarsiiyay dhimashada ciidanka Yahuuda ayaana sii kordhisay marba marka sii dambayso dhaawaca ayaana wax uu yahay mid tirabeel ah goobihii ay joogeen ay dib uga gurteen baqtigooda ayaa banaanada daadsan sidoo kale taangiyadii ay ku faani jireen oo gubanayo ayaa Telegram kala wadwada maadaama halkan fiidiyoyada aan laga ogoleen markii ugu horeysay ayay ciidanka Yahuuda wajahayaan xaaladii ugu xumeyd waxaana isa soo taraya jabka loo geysanayo sida ay wax u dhaceen qasaaraha ciidanka Yahuuda gaaray inta uu la egyahay dalka rasmiga ah ee laga leeyahay diyaaradaha xasuuqay ciidanka Yahuuda talaabada macquulka ay tahay inay qaadaan maamulka Yahuuda iyo xogo kale oo xasaasi ah ayaan muuqaalkan kuula wadaagi doonaa balse inta aynu muuqaalka u gudagelin muuqaalka like saar like-tane waxa ay muuqaalka ay ka caawinaysaa in muuqaalku meel dheer uu gaaro sidoo kale la wadaag dadku u baahan inay la socdaan wararka bariga dhexe gaar ahaan wararka xasaasiga ah ee ka imaanaya dhulka barakeysan ee Falastiin page-kane like garaysa ama follow taabo si aysan ku dhaafin wararka iyo warbixinada degdega ah ee aynu halkan ku soo gudbino ciidanka Yahuuda ayaa markooda wax la dhadhansiiyay kuleylka gantaalada waxaana loo geystay qasaare aysan waayadan ka soo kaban doonin sida ay isla dhaxmarayaan falanqeeyaashii qaar ka mid ah siyaasiyiinta caalamka saacadihii aynu soo dhaafnay jahwareer xoogan ayaa wax uu ka jiray hawada Gaza saraakiisha Yahuuda ee u qaabilsanaa difaaca hawada Gaza ayaa argagax uu ku dhacay waxa ayna maareen waayeen diyaarado drones ah oo halka wacdar ka muujiyay waxa ayna diyaaradaha gantaalo culus ku garaaceen fariisimo ciidanka Yahuuda ay ku leeyihiin duleedka Gaza sidoo kale waxa ay gubeen taangiyo dhowr ah kuwa oo ay ciidanka Yahuuda doonayeen inay ku soo dagaalgalaan muuqaalo lagu baahiyay Telegram-ka ayaa waxa ay muujinayeen sida uu u xooganaa qasaaraha gaaray ciidanka Yahuuda wararka hordhacay ee duqeymaha ka soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in dhimashada ciidanka Yahuuda ay kursi dhaafayso tobaneeyo halka dhaawacane uu inta uu ka badan yahay sidoo kale wararka ayaa waxa inta ay ku darayaan in ciidanka Yahuuda ay dib u gurasho sameeyeen maadaama uu gaaray jab xoogan website-ka militariga Israel ayaa lagu soo qoray in maamulka Yahuuda ay wadaan baaritaan la xiriira dalka rasmiga ah ee diyaaradaha laga leeyahay waxa sidoo kale qoraalka website-ka ku qornaa lagu xusay inay jiraan xogo fara badan oo ay hayaan sirdoonka Yahuuda goordhowna ciidanka Yahuuda ay ka argoosan doonaan dalka falka ka dambeeyay weerarka dhanka cirka ah ee lagu qaaday ciidanka Yahuuda ayaa loo badinayaa inay fuliyeen diyaaradaha droneska ah ee lagu soo farsameeyo isla mar ahaantaana ay leeyihiin Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran falanqeeyaasha iyo saraakiisha ku xil dheer arrimaha dagaalka ayaa aad u rumaysan arrinka iyagoona uga qiyaas qaadanaya qaabka droneska ay u marin habaabiyeen nidaam difaaceedka maamulka Yahuuda waayadan dambe ciidanka Yahuuda waxa ay la kulmayeen qasaare isdaba joog ah walow ay qarsanayeen military ahaan iyo sirdoon ahaan ay ugu jabeen dagaalkii ay ku soo qaadeen dhulka barakeysan ee Falastiin dawladaha carabta oo aaminsan in ciidanka Israel aan laga adkaan karin ayaa iminka runta ku baraarugay waxa ayna inta ugu badan dawladaha yaqiinsadeen inay been ay ahayd fikirkii ay ka aaminsanayeen ciidanka Yahuuda ugu dambeyntii wararka iyo warbixinada ka imaanaya dhulka barakeysan ee Falastiin waa kuwa xasaasi ah oo marba marka sii dambeysay soo taraya hadii aad u baahan tahay wararka ay warbixinadaha muuqaalka like saar sidoo kale la wadaag dadku u baahan inay la socdaan wararka bariga dhexe gaar ahaan wararka xasaasiga ah ee ka imaanaya dhulka barakeysan ee Falastiin page-kane like garaysa ama follow taabo si aysan ku dhaafin wararka iyo warbixinada degdega ah ee aynu halkan soo gelino